بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسر هذا ورئيس جارة وأنا لي لنا إنه سفير كجمهورية الصومالية وفدي ضلك كوفرة السودان مدن حسين حاج أحمد وفافهين هذا طبعا كبيحين دولار ما بدنا كوساب سن وحيابها سفارة الجمهورية دو أيوقع بتبرشة الصومالية يكون الوضع كاسي يجودان حريرك الصومالية لهذا هي كوفرة السودان مدن حسين حاج أحمد وضلك هذا السجن أي استوديو تي في قرن كي بقدر مقدشون ولا السجن أمباصدور سودو برامجك قارك كسودو أحمد وما سنتاي أديو صاحب بلايو تلفزيون قرك وما دعلنا فرصة نيسيا أدبض مع سنتاي بل أضو مركز كسودو وينيا تدوينها سومالية داونية دوليد على ذلك على السعودة واحد فاين قد كسيسا هولها سفارة إيو هالكي وحمرية أحمد وما سنتاي سفارة وسدا dadka Soomaaliyeed laga yaabo in badan oo kamid ah inay xasuustaan safaaraddu waxay qabataa hawlo aad u tiro badan inkastoo wax iska bedelaan mar walba siyaasadda safaarad dawladda iyadoo wadanka iyadoo tarjumaysa barigii hore dagaalkii qaboobaa adduunyada markuu jiray siyaasadda waxaa koow ahayd siyaasadda safaaradda shaqadeeda laakiin hadda waxaa koow ka dhaqaalaha siyaasadda waxay noqotay lambarka labaad saas darteed waxay ka shaqeysaa ilaalinta hantida dadka Soomaaliyeed ee meesha ku nool xalinta wixii mashaakil ay qabato dadkaasi la soo gudboonaada waxay kaloo ka shaqeysaa dokumentigooda waxay u baahan yihiin haddii ahaan lahayd baasaboorada dhalashooyinka haddii furiin iyo guur wixii la soo way tasdiiqisaa markay hay'adaha sharciga u la soo sameeyaan waxay kaloo qabataa xalinta wixii khilaafaada iyadoo la kaashanaysa guddiga ganacsatada Soomaaliyeed oo meesha ka dhisan marka arrimo aad u tiro badan ay qabataa waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan oo runtii dad fiican ah oo lagu qiyaaso 10,000 ilaa 11,000 inkastoo marmar bari samaadkii oo wixii ku horeeyay 2013 ay dad badan oo inta ka badan joogi jireen markii dagaaladii ka dhaceen ay in badan ka baxeen laakiin hadda waxa ku soo haray dad nolol maalmeedkooda raadsada kadibna hantidooda ay ku sameeyeen meesha ilaaliya waxa ku yaala dhismayaal aad u tiro badan oo dad Soomaaliyeed leeyihiin waxa ku yaala kaalmo aad u tiro badan waxa uu jooga shirkado isgaarsiinta baabuurta meelaha badeecadaha laga keenay dekedaha sida Mombasa oo kale iyo qaybinta gudahaba dadka boqolkiiba 99 gacanta ku haya waa dad Soomaaliya qalabka dhismaha ee wadanka la geeyo boqolkiiba 99 waa dad Soomaaliya cuntada waxa la cuno raashinka oo qudaartu ku jirin waxa geeyo waa dad Soomaaliya marka waad iska garan karaysaa waxa arkaysaa xaafado dhan oo aad malaynaysid inaad suuqi bakaaraha joogtid dadka dukaamada ku yaala ee boqolaalka ee safka ku wada yaal jooga marka intaas oo dhan waxay u baahan yihiin siyaasad ilaalisa iyo wadan ay ku tiirsan yihiin runtii barigii intaynan dawladdu xoog yeelan dhibaatooyin badan baa dhici jiray oo lagu sameyn jiray laakiin hadda waxaad moodaa wixii inay soo yaraanayaan anooga mahad celinaya markii koobaad labada madaxweyne koonfurta Suudaan iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ku kulmeen Addis Ababa waxay ka wada hadleen dhibaatooyin gaara oo jiray markaasi oo aan u soo sheegnay wasiirka arrimaha dibadda runtii madaxweynuhu markuu soo noqday dhowr maalmood kadib waxaan la kulmay madaxweyne ku-xigeenka dhibaatooyinkii ay la xusay ayaa isla markiiba la taabtay oo go'aamo laga gaaray marka xiriirka iyo daryeelka dadkaasi waa qodob muhiim u ah jiritaanka dadkaas way aad u maasan tahay anagu arintaas saatan ku guda jirnaa hawlaha la xiriira caawinaadda ama hawsha ay safaaraddu qabanayso Soomaalida jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaalida ee dabcan xooga ku leh koonfurta Suudaan si gaar magaalada Juba iyo safaaraddu balka war sidee isugu xiran yihiin wallahi markay isku xiran yihiin wax badan la qaban karo marka runtii ku sheego safaaraddu maba jiri kari lahayn haddii
guddiga jaaliyadda ama guddiga ganacsatada Soomaaliyeed hadayna jiri lahayn safaaraddu ma jirteen marka ayadoon aynan dowladda xaggeeda ka imaanin ayay waxay diyaariyeen meeshii safaaraddu ku shaqayn lahayd meeshii ay diblomaasiyiinta iyo safiirku degi lahaayeen gaadiidkii ay wadan lahaayeen wax walba markay diyaariyeen ayay dhaheen waxaan idinka rabnaa inaad keentaan dadkii meeshan ku shaqayn lahaa idinkana waxaa laydinka rabaa inta kale annagaa samaynayne mushaaraadkii ay qaadan lahaayeen dowladda dhexe inay bixiso marka waad ka garan karaysaa dadka intaasoo dhan safaaradda u sameeyey waajibaadkii qaran ka sokow inay abaal badan ugu leeyihiin oo khasab tahay inaad abaalkii wax ka gudid haddaadan kulligiis wada gudi karinba marka koowaad inaan u mahad celino anagoo fursaddan ka faa'iidaysanaya midda labaad inaan danahooda ka shaqayno har iyo habeen waxaan qabanaa shaqo aan waqti lahayn maadaama safaaradda gudaheeda aan dhex degannahay saacad walba albaabka safaaradda wuu furan yahay qofkii wax ku dhaco waxaan u samaynay communitiga iyo meel WhatsApp oo group ah oo ay ku kulmaan oo midka gobolka jooga iyo midka jidka sii maraya iyo midka magaalada jooga wixii ku dhaca uu ku soo gudbinayo oo markaaba lala xiriirayo hay-adihii arrintaas ay khusaysay sida xal looga gaaro marka waa niman aad u fiican oo intooda badan dhalinyaro ah runtii haddaan runta kuu sheego dhalinyaradaasi waxay isugu jiraan kulligood dukumenti Soomaaliya ma wada haystaan waxaa ku jira dukumentiyo dad berigii la baxayay la qaxayay Soomaaliya meel walba maanta joogtaa dukumentiyada caalamka oo dhan bay wataan waxay wataan dukumentiyada wadamada dariska ah waa laga yaabaa 40% ka mid ah inay dukumenti Soomaaliya haystaan laakiin waxaasoo dhan waxay ku midaysan yihiin oo kulmiya Soomaalinimada oo ayagana raalli ku wada yihiin oo wixii ay u baahdaanna loogu qabtaa wixii annaga aan uga baahanana kala xiriiraa waxaa jira oo wadanka ku heshiinay dadka Soomaalida markaan u adeegayno inaan nagula dhaqmin qofkan dukumentigu haysto oo mesela markii nin passport Mareykan wato wax ku dhacaan inay safaaraddu kala hadli karto hay'adaha nabadgelyada ayadoo la fiirinayo dukumentiga urjinka ugu qoran asalka muxuu yahay Soomaali hadduu Soomaali yahay inaan soo faragelin karo mushkiladiisa aan wax ka xallin karo way caqabado badan dabcan imaan kara oo mar haddii dadkii ay dal aan dalkoodii yihiin ku nool yihiin dabcan dhibaato badan la kulmi karaan haddii aan la caqabad dhinaca ganacsiga ka soo wajahda caqabadaha soo wajaha ganacsatada ilaa hadda aad xalliseen balka war horta aad bay u badan yihiin runtii waad iska garan kartaa carab iyo labadan way iskhilaafaan xataa si kastoo isu jecel yihiin marmarkii dhibaatooyin xagga shidaalka wadanka ka dhaco dad baa la xirxiraa oo la yidhaahaa waxaas suuqa madow iyagaa ka dambeeyey markii lacagta qiimaheeda uu kor u kaco dad baa la xirxiraa dadkaasi waxaa ka mid a qaarkood oo u badanba oo lacagaha iyagaa xukuma bangiyana way leeyihiin waxay leeyihiin xawaaladihii Soomaaliya ka jiray oo kala ka jira door bay ka qaadan karaan inay lacagtaasi kor u kacdo iyo inay hoos u dhacdo marka saas darteed eedahana qayb bay ku leeyihiin waxyaabaha ugu badan ee dhacana waa shidaalka iyo lacagaha marka dadka lagu xirxiro Soomaali baa ka mid ah oo laga yaabo inay lambarka ugu badan yihiin sida hadda midii aan ku sheegay ahayd xilli mushkilad shidaal oo shidaalkii uu cirka isku shareeray ayaa dhalinyaro Soomaaliya waxa laga la wareegay ilaa 5 baabuur oo shidaal oo magaalada dhexdeeda intay meel ka qaaday meel kala geynaysay ayagoo lagu eedeeyay inay tahriibinayeen shidaal ama suuqa madow ku iibinayeen runtii arrintaas waxay soo socotay muddo sanad iyo bara hadda muddo hadda laga joogo 2 week ka hor baa la xaliyay arrintii oo loo soo ogolaaday nimankii dhalinyaradaha horta ayagii waxay xiraayeen 4 maalmood kadib safaaradda soo damiinatay 4 maalmood banaankay joogeen kadibna sanad iyo bar waxa lagu guuleystay in lacagihii lagu iibiyay shidaalkii markaas laga qaatay qaar ka mid ah in loo soo celiyo oo ay qofka marka wixii la qaato hatta haddii rubuc loo soo celiyo ama nus loo celiyo waa nooc faa'iido waana markii koowaad oo dhacday lacag khasnada dawladda gashay in qof shakhsi oo ajnabi ah
loo soo celiyo la siiyo la yidhaaho lacagtaasi si khalad ay ku dhacday oo hadda waa laga daba tegey waxaasoo dhanna ma dhaceen hadduuna xiriirkan sii wanaagsanaadanayay labada wadan iyo safaaradda iyo wadanka iyo madaxda wasaaradda arrimaha dibadda hadduusan jiri lahayn wax walba waxay u baahan tahay cid kaa dambeysa oo loo markay wax kugu dhacaan aada u dacwootid dadku safaaradday soo magan galaan safaaradduna wixii ka weynaada wasaaradda iyo madaxda ka sarreysay la magan galaan marka sidaasaan ku xalinaa waxaa kaloo iska jira khilaafaad badan soomaalidu waad ogtahayo intay wax isku darsadaan ayay haddana iskhilaafaan marka waxaasoo kalena haddana waa la xaliyaa wixii communitygan kolka hore u diraa markii wixii ka weynaadaan ayaa annaga soo faragelinaa hadday suurtogeli weyso waxaan maxkamadaha waddankan u gudbinaa hadday intaa waana yaryihiin waxa maxkamad loo gudbiyey oo inta kale jaranjaradaasa ay ku soo xalismaan arrimo badan waayahay aad baa mahadsan tahay xiriirka haatan u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan oo aad baad ku tilmaantay hadda wanaagsan yahay sidii aad xilka safaaradda ula wareegtay dabcan dadaal badan aad ka qabatay maanta maxaa ku tilmaami kartaa meesha maraya wallaahi waxaan ku tilmaami karaa sidii wadamo muddo dheer xiriir soo lahaay oo kale markaan kuu sheego intii aan joogay wasiirkii hore arrimaha dibadda mar buu yimid asagoo shirki IGAD oo meesha lagu qabtay Yuusuf Garaad ka qayb galayay wasiiru dowlaha mar buu yimid madax kale oo agaasimayaal baa yimid Addis Ababa dhowr jeer bay ku kulmeen inkastoo madaxweynayaashu ay markii koowaad ahayd oo ay la kulmaan aadna ay u muujiyeen inay ugu faraxsan yihiin inay madaxweyne farmaajo la kulmaan oo ay waxyaabo badan ku heshiyaan marka waxaasoo dhan xiriirkaasi wax badan baa iska bedelay markii hore waxbaba la iskama aqoon dadkuna waa dad inda ku garaadlo oo qalabka warbaahinta ay dhageystaan wadanka marka ay maqleen in madaxweynayaashii labada wadan adigoon adiga aadan sheegin baa iyagu kugula soo kalahayaan oo subaxay ku leeyihiin dee mabruuq dee madaxweynayaasheenii baa kulmay wax alla wixii dhibaato aad tabanaysaan noo sheega wax baan idinkala qabanaynaa ayagii baa taliyaashoodii booliska iyo hay-adihii dadku arrinta uga xireedo dhan baa kusoo wacaya adigoon adigu raadin markaad raadisana si ka fiican baa lagu soo dhaweynayaa heer waxaan gaaray aan dhahno la yidhaaho brotocoolkan codsiga iyo ballamaha iskaga baxo galabtii soo wac meeshaan habeenkii kafee ka cabayo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ilaahna wixii mashaakil oo cusub halkaa noogu sheeg saan subaxii xafiiska markaan tagno ugu soo xallino marka waxyaabo badan baa noo suurtagalay runtii oo aada u fiican maasha allah aad baa mahadsan tahay arrinta waxaa jirtay caqabad badan ka taagneed oo dhinaca tahriibka la xiriirtay oo koonfurta Suudaan waxa ay ka mid ahayd meelaha marinka oo ah dadka tahriibka ah ee Suudaanta waqooyi mara ee Liibiya ka sii gudba bal arrintii tahriibka ee muddo aad isku dayday in wax laga qabto dad loo xirxiray halkay ku dambeysay bal arrinta ka waran horta aad baan ugu faraxsanahay qodobka inay weydiisid sababtoo ah dadka tahriibkii Liibiya tagay oo hadda dadkii laga soo celinayo dad baa wali ku sii socdo jidkiisii maraya aan ku ogeyn aan wali maqal dadkii Liibiya joogay intaasoo jeer la kala gatay oo mashaakil iyo balaayo haysato meelihii la mari jiray bay ka mid ahayd koonfurta Suudaan inkastoo dhihi karo wali waa la maraa laakiin sidii uma badna lambarku aad buu yaraaday wax badan baa iska bedelay waatii dhowr dhalinyaro ah oo magafayaala la soo qabtay oo Interpolka koonfurta Suudaan loo soo dhiibay wadankeena si nasiib darraha nimankii lagu sii daayay anoo ka xun nimankii hadda xor weeye ama Soomaaliya inay joogaan inay meel kale kulay koonfurta Suudaan kuma soo noqon nimankii kale oo wadanka jooga xoogaa dhibaatay nagu noqotay way maqleen nimankii la sii daayay ninkii shalay uu ku airportka aadan caddo kugu keenay aad sii daysay maanta war hebel baa dambiga naga galay oo dadka tahriibinaya qabo ma dhigi karti kulay ku shalay ku soo dhiibay waa soo daysay seed maanta ay dhahaysaa maanta kan kala soo qabo marka taasna baaxay nagu noqotay hay'adihii ay lugta ku lahayd sida xeedalinta guud oo amarkii lagu sii daynay sameeyay
markaan warsaday waxay dhaheen waxaan u sii daynay 2 qodob dartood mid waxa weeye sharci tahriibka weli baarlamaanka ma soo bixin waa ka codsanayaa baarlamaanka anoo fursadan ka faa'iidaysanaya in sida ugu dhaqso badan sharciga tahriibka si dadka ku lug leh loo ciqaabo haddii kuwa dambe la soo qabto midda labaad waxay ahayd dhibanayaal nimankan ku dacwoonaya oo xamar jooga ma jiraan inkastoo wasiirka cadaaladda markaan u geeyey dukumentigii ay koonfurta suudaan soo dirtay uu igu yidhi dukumentigani uma baahna in cid ku dacwooto ama cid kale waa dhammaystiran yahay waana lagu ciqaabi karaa dadkan laakiin arrintii niyaabadaa waxaan ka samaysay si toosana uma faragelin karo ma aqaana hay-adahaasi cadaaladda waxaa ka dhexeeya laakiin anigu waxaan u haystay hay-adahaas oo dhan inuu wasiirku xukumo oo uu amar ku siin karo laakiin waa dhibaato taagan oo u baahan xal degdega haddaan rabno inaan arrinta tahriibka joojino waxyaabaha lagu joojin karay ka mid tahay in dadka ka shaqaynaya magafayaasha in la ciqaabo oo dembigay galeen laga gooyo waxaa ka mid a waxyaabo kaloo badan oo waalidiintooda in la wacyigeliyo dhalinyaradaasi in loo sameeyo shaqooyin loo abuuro xeeb dheer baan leenahay berigii ma dhalana berigii dowladdii maxamed siyaad 70 berigii abaartii daba dheer 300,000 kun baa xeebaha la geeyey iyo beeraha oo shaqooyin looga abuuray wadamada markaan kala badaha leh Soomaali kaliya ka jira wadan 3,000 oo xeebta ugu dheer Afrika leh oo aan dekad kalluumaysi lahayn waa wax cajiiba waa adduunyadana lala yaabo dekad raashin dibadda laga keeno laga soo dejiyo cid walba maamul goboleed walba wuxuu rabaa inuu samaysto laakiin khayraadkiisii wixii looga faa'iidaysanayay oo kalluumaysiga ahaa dekad kalluumaysi hal meeloo lama jirto meel walba waa arkaysaa dekad meeshii kalluumaysto ku aruurtaba nin baa la siiyaa meel bay u sii cararaan wax suurtagal maaha wax caqliga bini aadamka aqbali kara maaha 3,300 kilomitir baan leeyahay dekad kalluumaysana mali manaa waxaan ka wadaa dhalinyarada tahriibaysa meesha loo jihayn karo oo hadda furan waa kalluumaysi wax soo saarka kalluumaysi marka arrimahaas oo dhan waxyaabaha lagu way jirtaa hadda tahriib nooc yara ayaa hadda jubba mara oo aan badnayn oo dad ay ka shaqeeyaan oo qaarkood laga yaabe in baasaboorradooda inta si tuugaa lagu qaado South Sudan la geeyo sharci loogu soo sameeyo si tuugaa ka bacdi airportka aadan cadda iyagoo sharci leh marka ka bacdi ay waqooyiga Suudaan u sii tahriibaan laakiin waa lambar aad u tiro badan oo tiro yar oo weli kontaroolka ay ku jiro ognahay laakiin waxaan uga gabanayna kaliya inay tahay dadka ka shaqeynaya haddii aan dacweyno oo warqad ka qorro sidii kuwii kale baa ku dhacay ilaa sharcigaas uu ka soo baxayo tahriibka baarlamaanka wax tilaabo oo ka samayn kara ma jiraan aad u mahadsan tahay safaaradda madaxda ka tahay koonfurta Suudaan Soomaaliya ay ku leedahay sharciyo ma bixisaa oo sida baasaboorkii ma bixisaa warqadihii travel documentiga oo dadku ay ku soo laabanayeen ma bixisaa bal arrimahaas ka war waxaas waa waxyaabaha asaasiga ka mid ah runtii maalintii aan tagnay maalintii ku xigtay baasaboor baan bixinaynay waxaa soo diraa dadku waa diiwaan gelinaa waxaan ku xiraa qof walba meesha shirkadda wadanka shirkaduhu u qaybsanye maalan waxaa intaasoo shirkadooda oo marka waxaa qofka hadduu uusan sharciga baasaboor hore u lahayn waxaa lagu xiraa inuu shirkadda uu ka shaqaynayo warqad ka keeno qofkaas inuu ayaga u shaqeeyo oo uu ama darawal u yahay ama makaanig u yahay wuxuu u qabto marka qaarka kalena dukumenti hore u lahaana dukumentiga hore u lahaaya baa la tixraacaa waa la bixiyaa maalin walba baasabooraan bixinaa dadku waa qaataan bishii markay ugu daahdo 45 cisho ayaan dadka baasaboorada ugu keenaa marka tan go'hoomyadana waaba jiraaba dad badan baa soo celinay Soomaaliya waqti xilligii taariibka ilaa 350 qof baan soo celinay oo ayagoo tahriibaya la soo qabtay 350 go'hoomyo bilaashaan soo sameynay oo wadanka dib loogu soo celiyo marka dokumentiyo badan oo aan sameynaa jiro noocaas oo dadka loogu adeegayo
aad baa mahadsantahay dadaalla waxaa jiray ku lug lahayd ood madaxda qaar koonfurta suudaan aad kala hadashay oo ku saabsanaa soomaaliya oo u sharaxan xogayaha guud ee ururka IGAD dadaalladaas iyo arrinta halkay maraysa warbixinadaas wallaahi horta dadaalkaas mar hore aan bilownay kowgii markii aan ku noqonayay muddo 3 bilood ka hor aan Juba ku noqonayay ayaa waxaan u tagay wasiirada arrimaha dibadda wasiir ku xigeenka iyo wasiiru dawlaha iyo wasiirkii hore waxaan u sheegay inaan noqonayo berri markaas ay sheegeen oo dhan arrintaas jirta waxaan rabnaa inaad wasiirka arrimaha dibadda la soo qaadid isla markiiba waa la soo qaaday maalintii dhowr toddobaad muddo ku yar markaan joogay waa la xariiray waa u tagay xafiiskiisa wuxuu yidhi waa anagu wixii aan soo shukaamin karana waa idin soo shukaaminaynaa codka iyagana inkastoo nin murashaxa leenahay oo 4 qof baa sharaxan 4ta marka la isku soo koobo Suudaaniintu waxay u bixiyeen 2 Suudaana iyo 2 Soomaaliya 2 Suudaana waxay ka wadaan labadii Suudaanta waqooyi iyo Suudaanta koonfureed labada Soomaalidana waxay ka wadaan Djibouti iyo Soomaaliya marka 4taas sharaxan marka wacad wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ninka ugu nasiib fiican waa wasiirka waa kiina murashaxiina ninka idin sharaxana waa naqaanaa waa nin hawlkara oo hawsha ka bixi kara kaayaga waa ognahay inuu socon karin laakiin ninka aan isku hadlaynayno inaan gacan siinayno waa murashaxiina isku kaaya haleeya waana idin shukaaminaynaa wadamada kale sida adinkana dhankiina ka shukaansada sida Kenya oo ala xiriir gaar ah ka dhaxeeyo iyo Uganda kuwan kalena laga yaabo in adinkaba nooga fiican tihiin laakiin anaga labadaas aan isku daynaa inaan idin shukaamino marka tilmaamo kalena wayna siiyaan hadda rabin inaan xuso oo weak point ama ku ah dadka nala tartamaya oo anaga mudnaana siinaysa sida xarunta meesha ku taalo iyo yaa hore u soo qabtay jagadan maxbuubka hore yaa soo hayay waxa soo dhan waa calaamado tusaya oo uu ii sheegay wasiirka arrimaha dibadda in mudnaanta adinkeeda siinaysa 85 15 kale saad u dhameystir lahaydeen adinkeeda ku xiranta annagana codkayga meel buu idin yaala marka waa dad aad u jecel Soomaalida waxay aad u jecel yihiin inay arkaan Soomaaliya oo ku soo noqota siday bari ahaan jirtay waa dhici kartaa wadamada ayaga ku hareeraysan inay siyaasado kala duwan Juba kale yihiin laakiin waxay og yihiin dawladda Soomaalida iyo ilaa hadda tilaabooyinka ay qaaday iyo kulamadii Juba lagu qabtay iyo kuwa Addis Ababa kalimadihii madaxda Soomaalida ay ka jeediyeen kulligood inay ku tusayaan inay Juba ka rabaan siyaasad madax bannaan oo aan labada dhinacyada isku haya aan dhinacna raacsanayn oo ka madax bannaan ahna ku salaysan danta reer koonfurta Suudaan marka aad bay ugu qanacsan yihiin aad bay uga heleen kulamadii ay la yeesheen farmaajo aad bay ugu farxeen kulamadii ay wasiiradii hore ee Juba lagu qabtay hadaladii ka jeediyeen aad bay uga farxeen maalin ka dambaysa way soo jeclaanayaan wax badan bay ka soo ogaanayaan dadka Soomaaliyeed kolka hore waxay ku koobnaayeen inta ganacsiga u joogta wadanka gudihiisa joogta aad u mahadsan tahay mudane ugu dambeyntii koonfurta Suudaan oo dabcan lagu tilmaamo wadankii ugu dambeeyay xornimo qaatay sanado dhowr ah oo aad la soo dhaafay caqabad badan ka jiray dagaal ka dhacay dad badan lagu laayay barakacya ka jiray Soomaalidina saameyn ku yeelatay arrintaasi bal hadda Juba xaalkeeda siyaasadeed ee khilaafkii ka jiray dawladdaas dhexdeeda bal ka waran horta Juba runtii markaan dadka Soomaaliyeed u sharxo aniga waxaan ku tilmaami karaa dagaalkii dhacay dartiis janno luntay janno inta la arkay mar haddana la la'yahay waxayna ku tahay dhulku waa dhul barwaaqo ah waa dhul webiyo badan niilka mara faracyo badan baa ka baxa dadka deegaanka oo wadanka iskalana weli ma bilaabin inay khayraadkaas ka faa'iideystaan
shirkado badan baa jooga oo aada u tiro badan oo ajnabi ah oo wadan walbaba leh. wadan badan baa khayraadka wadanka isku haya oo dhinac walba, xataa wadamadan afrikaanka iyo kuwa ajnabiga qaar baa isku xiran. wadankaasi hadda waxaan dhihi karaa wuu ka fiican yahay mustaqbal ahaan sanadihii lasoo dhaafay. hadda waxaad moodaa kooxihii iyaga ka soo horjeeday noocay doonaan ha ahaadeene inay military ahaan baaba'een. militariga keliya xoog badan waa midka dowladda hadda oo meeshuu raba gaari kara. helikobtaray leeyihiin, taangiyey leeyihiin, waxyaaba badan bay leeyihiin. laakiin waxaa jira kooxo aan siyaasad dan ka lahayn oo jideedka gala oo qoryo wata. kuwaasna waa wax iska kooban oo baabuurta jidadka maraysa iyo wax ka furfurta. kuwaasna waa wax kooban mar haddayna siyaasad ujeedadooda ku lug lahayn. hadda wada hadallaa ka socday bishii lasoo dhaafay muddo 17 cisho ah. heshiisyo horey loo galaa jiray iyo wixii laga bedelayay. hadda waxaa la karkarinayaa oo aan filayaa inay bishan dhammaadkeeda shir kale isugu imaan doono Addis Ababa oo la karkarinayaa in la sameeyo muddo 2 sano ah oo ku meel gaar ah. muddada 2 sano madaxweynaha jooga inuu sii hayo loo sameeyo 5 madaxweyne ku xigeen oo asaga hoos yimaal. hadda laba uu leeyahay in 3 kale lagu soo daro. 3 kale ay mucaaradka 2 yeeshaan, midna dumarku yeeshaan iyo 2 hadda joogta. marka 5 madaxweyne ku xigeen uu yeesho. in ciidamada dib loo dhiso, ciidamo kooxahan ayaga ka soo horjeeda military ahaan loo jabiyey in dad laga soo qaado lagu soo daro. in la sameeyo baarlamaan ay xubinka ka wada yihiin. hadda baarlamaankooda wuxuu ka kooban yahay 400 oo xubnood. markii xorriyadda qaadanayeen 2011 wuxuu ahaa 170. sidii kolba kooxdii ku soo biirtay dowladaba baarlamaan iyo wasiiro loo siinayay ayuu hadda 400 maraya. marka waxaa leeyahay maalintii xorriyadda qaadanayay 170 ku ahaa wixii siyaadada ku ahaa in dib loo qaybsado xubnahaas oo mucaaradka wax laga siiyo, baarlamaanka ka soo mid noqdaan, dowladdana wax laga siiyo sida ayada hadda u wada haysato in wax laga bedelo. waxaasoo dhan marka meel la isugu keeno ciidamo mida la dhiso marka la sameeyo August ay hadda madaxweynaha iyo dowladdiisa ugu egtahay sidii hore loogu heshiiyey oo soo socod. August kadib in 2 sano oo ku meel gaara la sameeyo oo kooxaha oo dhan iyo dowladda oo dhan wada kulmiya. hadda dabcan Riyad Masaar iyo waxa ishaayay Riyad Masaar waa siyaasiyiin hadda kuwo isaga uu soo dirsaday. isaga waa loo diiday inuu yimaado shirka Addis Ababa. laakiin kuwo isaga taageersan ayaa shirka ka qayb galaya, wada hadallada ka qayb galaya. runtiina aakhirka marka isaga waxa loo ogolaan doonaa 2 sano markay dhammaato waxaa la gelayaa doorashooyin baa la diyaarinayaa. doorashadaas waa loo ogolaanayaa inuu yimaado ka soo qayb galo. asaga iyo ciddii kale wax isku haysa oo leh cod baad ku heli kartaan. madaxweynaha wadankana wuu ka qayb gelayaa doorashadaasi. marka waxaas hadda la karinayaa weli lama dhammaystirin, laakiin qodobada asaasiga ah ee hadda la raba in lagu heshiiyo. laakiin military ahaan cid hadda khatar ku haysa dowladda hadda jirta oo Salva Kiir ma jiraan. waa siyaasad iyo in wax laga soo goostaa la wada raadinaya si siyaasi ah, laakiin si military ma jirto. aad iyo mahadsantahay mudane Ambassador Xuseen Xaaji Axmed oo barnaamijka gaarka ah ku wareysanaynay. adan ku maadnaqaya mudane Axmed adiga mudane aad baan ku mahad celinayaa adiga iyo saaxiibada. dawladyaasha qiimaha leh barnaamijka gaarka ah ama wareysiga gaarka ah aan la yeelanay Ambassador Xuseen Xaaji Axmed safiirka Soomaaliya u fadhiya koonfurta Suudaan. intaa ayuu ku idil yahay. waad mahadsantihiin daawashada ila socodka barnaamijka mudane aad baan ku maadnaqaynaa. nabadgelyo. shukran Axmed mahadsanid.